maalin wanaagsan daawadayaal meel ka soo joogtana u diyaar garooba wararkeena maanta axada 17 Janaayo 2022 wararkeenana kooda ugu waaweyn waxa qayb ka ah gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose oo ka badbaaday weerar qaraxyo ah iyo taliyay ciidanka danab iyo ku-xigeenkiisa dhaawacyo culus soo gaaray qaraxyada ka dhacay Shabeellaha Hoose xaaladda caafimaad taliyay ciidanka danab iyo gudoomiyaha Shabeellaha Hoose oo qaraxaasi ka badbaaday xogo ku saabsan weerarkaasi qaabka u dhacay ayaa idin soo gudbin doonaa xog cusub oo laga helayo ujeedka kulamada madaxweyne Qoorqoor iyo Guudlaabe ay ka bilaabeen magaalada Muqdisho iyo wasiirada beelaha Hawiye oo shir isdaba joog ay la qaadanayaan villa Soomaaliya oo diyaarinaysa qorshe la iskaga horkeenaya Axmed Madoobe iyo Dani madaxweyne Dani oo amar ku bixiyay in la qasbeeto in la isticmaalo lacagta shilinka Soomaaliga Mareykankaasi waxa uu soo fargeliyay xiisada u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya iyo wararka arrimaha doorashada ayaa qayb ka ah qodobadaasi kuba kale ayaa ku daawo doontaan wararkeena qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe ina dhig gambareyna taabas ay kugu soo dhacaan muuqaalada warbixinada iyo xogaha gaarka ee halkan aan ku baahino aan ku bilaabay weerar qaraxyo ayaa ka dhacay Shabeellaha Hoose xogii ugu dambeeyay waxay sheegeen gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ka badbaaday laakiin taliyaha iyo taliye ku-xigeenka ciidanka danab ee Mareykanka oo tababaray waxyeello ay ka soo gaartay qaraxyadii Shabeellaha Hoose ka dhacay wararka laga helayo gobolka Shabeellaha Hoose ee Koonfur Galbeed Soomaaliya sheegay in qaraxyo xoogan ay ka dhaceen deegaanka Taxsiil halkaas oo lala eegtay kolonyo oo hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabduqaadir Maxamed Nuur Sidii isla markaana qayb uu ka ah taliyaha ciidanka danab gaashaale Axmed Cabdullaahi Nuur Peeryare kaas oo ay ka soo gaartay qasaaro dhaawac waxaana la soo warinay qaraxyadaas ay sababeen qasaaro isugu jira dhimasho dhaawac oo soo gaaray taliyaal ciidan askarta ilaalada gudoomiyaha iyo mas'uuliyiin kale qaraxan oo haaminada dhulka lagu aaso waxa lagu soo waramayaa in waxyeello ay soo gaarsiisay saraakiil ka tirsan ciidanka danab iyo sidoo kale gaadiid dagaal oo halkaas ku gubtay sida wararku ay sheegeen qaraxa kadib waxa xigay iska horimaad toos ah oo dhaxmaray ciidamada al-shabaab iyo waliba militariga Soomaaliya oo ilaalada u ahaa gudoomiyaha gobolka iyo sidoo kale labada taliyan warar hordhacan keenina qasaaraha ka dhashay weerarkaas ayaa sheegaya inay jiraan in ugu yaraan ilaa 4 ka mid askar ka tirsan ciidanka dawladda garan kuwa sida gaarka u tababaran ee danab ee xoogga dalka Soomaaliya ee halkaas ay ku dhinteen laba kale oo cadaan ah oo ayna la sheegay in kolonyada gudoomiyaha la socday kuwaas in dhaawacyo ay soo gaareen inkastoo aan la ogaanin wadamada ay u dhasheen sidoo kale waxa ay dhaawacyo soo gaareen askar badan oo Soomaali ah iyo waliba xubno kale oo mas'uuliyiinta dawladda ku jira gaar ahaan taliyada ciidanka saraakiisha ku dhaawacmay ayaa waxa ku jira taliyaha ciidamada danab gaashaale Axmed Cabdulle Peeryare kaas oo dhaawacyo fudud soo gaaray kolonyada qaraxyada lala beegsaday ayaa ka ambaxay degmada Afgooye gaar ahaan markii ay gaareen degmada Walaweyn ee Shabeellaha Hoose muddooyinka dambe halkaas ay ka jireen xiisado colaadeed ayna isku dayeen inay baladweyn ka soo magaalada la yiraahdo Walaweyn ay ka soo gudbaan ayna u soo gudbaan Afgooye xasaysha deegaanka Taxsiil iyo Masaq ay dhibaatadu ku qabsatay dhinaca kale al-shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkan waxayna sheegeen inay dileen ilaa 4 ka mid ah saraakiil military sida ay sheegeen wali ma jirto wax hadal ka soo baxay saraakiisha ciidanka dawladda iyo kuwa gobolka Shabeellaha Hoose oo ku saabsan qaraxan iyo mushkiladaha qabsaday askarta xiriiro la sameynay gudoomiyaha gobolka iyo xubnaha kale ayaa ka gaabsaday in faahfaahin badan oo dheeri ay ka bixiyaan howlgallada iyo waliba musiibadii qabsatay dhinaca kale saraakiil ka tirsan al-shabaab ayaa in lagu soo waramay in howlgal ka dhacay Shabeellaha Hoose lagu qaarijiyay aan raacsaday warbixintii hadda soo dhacday faahfaahinno dheeraad ayaa laga helayaa howlgal xalay saqdi dhexe guutada saddexaad ururka 19aad ee militariga Soomaaliya ay ka fuliyeen duleedka degmada Balcad ee Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose meel ka mid ah Afgooye hoosagta howlgalkan oo mid qorsheysan ayaa ciidamada sida gaarka u tababaran waxa ay la sheegeen howlgalkan ka fuliyeen deegaan 8 kiiloomitir u jira degmada Balcad waxaana la sheegay in taliska qaybta 27aad ee militariga oo horkacay General Maxamed Axmed Tireedisho howlgalkaas ay fuliyeen sidoo kale taliyaha ayaa shaaca ka qaday in howlgalkaas lagu dilay laba saraakiil oo muhiim ah oo horjoogayaal ka mid ah kooxda al-shabaab Tireedisho ayaa inta ku daray in howlgalka lagu soo qabtay qaraxyo al-shabaab ay diyaarinayeen si ay ugu dhibaateeyaan dadka xalay waxaan soo qabanay qaraxyo waxaan fulinay howlgal muhiim ah ayuu yiri taliyaha warbaahinta dawladda la hadlay muddooyinkii ugu dambeysay waxa sare loo qaaday howlgallada ka dhanka al-shabaab ee laga fulinay wadada xiriirisa magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho
waa jowhar iyo balcad iyo muqdisho oo inta badan al-shabaab halkaas weeraro ay ka geystaan. weli wararkeena ayaa daawanaysa saaxiibayaal. xog cusub ayaa la gelaya ujeedka kulamada qoorqoor iyo guudlaabe ee kulamada siyaasadeed iyo xubnaha wasiirada beelaha hawiye ee la qaadanaya magaalada muqdisho. faahfaahin dheeraad ayaa la gelaya kulan xalay mar kale wasiirada beelaha hawiye iyo weli madaxweynayaasha maamulada galmudug iyo hirshabelle ay ku wada qaateen magaalada muqdisho. xaqiiqda kulanka ayaa ahaa qorshaha la xiriira dooda matalaada gobolka banaadir oo u muuqanaysa mid mar kale soo laba kaclaysay. qorshahan oo hindisay madaxweyne farmaajo ayaa xilligan loo ogolaaday in xubnaha beelaha hawiye ay dood culus ka keenaan si ay ula dagaalamaan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo ka biyo diidan qorshaha taageerada doorashada Soomaaliya. waxaana la qorsheeyay qoorqoor iyo guudlaabe arrintan ay soo jeedeen in dood adag laga bilaabo arrinta ku saabsan matalaada gobolka banaadir iyo in beelaha hawiye ay baadigoobaan 13 xubnood ee aqalka sare ay meel mariyeen golaha shacabka. xiisadan ayaa la qorsheeyay inay ku soo beeganto 8 Febraayo si meel sare ay u gaarto dhammaanba xiisadaha arrimaha doorashada. madaxweyne farmaajo ayaa u ololeynaya in 13 xubnood ee gobolka banaadir ee matalaada ay ku yeeshaan gobolka banaadir, balse arrintaas waxaa diidan labada madaxweyne Puntland iyo Jubbaland. inkastoo arrintaas ay u muuqato mid lagu hungoobay oo aan xitaa lagu muujin heshiiskii 17 September ee lagu gaaray magaalada muqdisho, kaas haddii lagu dari lahaa ayay dad badan oo xogaal ay qabaan in macquul ahaa, laakiin hadda aysan suurtagal ahayn. madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa si weyn kaga soo horjeeda matalaada 13 kursi ee gobolka banaadir. arrintaasoo madaxweyne farmaajo doonaya in hadda uu kiciyo si kuraasta iyo weliba xubnaha kale ugu badsado. dhinaca kale dowladda ayaa dejisay qorshe karin Axmed Madoobe iyo weliba madaxweyne dani ee lagu horkicinayo beelaha hawiye. dowladda federaalka ayaa dejisay qorshe la iska horkeenayo beelaha hawiye iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland si ay u kala dhantaalmaan awoodooda midaysan ay isku hayaan doorashada sida janaalkan ay u xaqiijin in lagu kalsoonaan karo. qorshahan oo loo soo dhiibay madaxweynayaasha hirshabelle cali guudlaabe iyo madaxweyne qoorqoor ayaa waxaa la sheegay in dood ay hadda ka raadinayeen oo doodaas la baadigobay ay tahay maqaamka caasimada sidii loo heli lahaa oo habeen hore labadan madaxweyne ay la kulmeen wasiirada ku jira beelaha hawiye. sidan xogta kulle waxa maalmihii la soo dhaafay ay bilaabeen qorshe gadaal ay ka riixayso madaxtooyada Soomaaliya oo lagu abaabulay beelaha hawiye si toos ah ay dood kaga keenaan gobolka banaadir sidoo uu heli lahaa xuquuqda matalaada siyaasadeed, taasoo madaxtooyadu ay taageersan tahay qorshahaasna ay rabto. madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo madaxweyne dani ayaa hore kaga hor yimid arrinta maqaamka muqdisho, waxayna madaxtooyadu ay rumaysan tahay in mar kale haddii xiisadaasi la sameeyo taas ay keeni karto in arrimo la xiriira arrimaha doorashooyinka meel dhaxaad la iskaga yimaado. waxaana markaas kadib qorshuhu yahay inay kala dhantaalmaan musharaxiinta mucaaradka ee beelaha hawiye kuwa halkaas ka imaanaya. Axmed Madoobe dani ayaa la sheegay inay ka soo horjeedaan qorshaha doorasho ee Villa Soomaaliya iyo sidoo kale matalaada gobolka banaadir oo ay hore u diideen. madaxtooyada ayaa la rumaysan yahay inay dib u bilowdo abaabulka iyo kicinta xubnahan iyadoo adeegsanaysa labada madaxweyne ee beelaha hawiye ka soo jeeda si u laabkiciyaan dadka iyo odayaasha dhaqanka si loo helo loona xaqiijiyo 13 kursi ee hore baarlamaanka u meelmariyay, kaas oo la sheegay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay diideen. inkastoo musharaxiinta mucaaradka arrintan aysan ka wareyn, haddana madaxtooyada ayaa la sheegay inay dhiirigelinayso bilaawida dooda la xiriirta maqaamka iyo 13 kursi si dowladda Soomaaliya ugu xisaabtanto tirada codadka ee kuraasta ay helayso. baarlamaanka Soomaaliya hore u meelmariyay qodobka dhigaya in 13 kursi gobolka banaadir uu ku yeesho aqalka sare, hase yeeshee waxaa arrintaasi dood adag ka keenay xubnaha madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland. inkastoo baarlamaanku ay ansixiyeen madaxweynuhu uu saxiixay, laakiin haddana meelna laguma xusin heshiiskii 17 September dhacay ee dhinacyadu ay gaareen. madaxweynaha Soomaaliya ayaa la sheegay inuu aad u qorsheynayo in mar kale doodaasi dib loo bilaabo si ugu xisaabtamo codadka ka imaanaya 13 kursi ee gobolka banaadir. wararkii ugu dambeeyay doorashada Soomaaliya ee aan eegno wali doorashadu waa ay muran badan ayaa ka jira, xal lagama gaarin. xubnaha beesha caalamka ayaan u muuqanaya kuwa markan qaadanaya awooda doorashada iyo sidoo kale in la isku keeno dhammaanba dhinacyada kale. waxaa la sheegay in beesha caalamku hadda ay qorsheynayso in haddii xitaa wada hadallo lagu xalli waayo in qaab awood ah markan ay u adeegsato doorashada Soomaaliya. beesha caalamka ayaa
kuwa bixiya dhaqaalaha ugu badan ee lagu fuliyo doorashada Soomaaliyana wajahaysa caqabad aad u weyn xilli madaxweynaha oo u muuqdo mid waqtigiisa ka sidlaanaya ayna u hartay 22 cisho taasoo ka dhigay 2 toddobaad kadib madaxweynuhu ay ka dhamaanayso muddo xileedkii sharciga ahaa iyadoo madaxweynuhu arintaas la sheegay inuu aad kaga doorbidayo in la bilaabo doorashada aqalka sare ugu dambeyn daawadayaal madaxweyne Dani wuxuu amar ku bixiyay in la dhaqan geliyo qaadista lacagaha shilinka Soomaaliga ah iyo waliba in dadku ay isticmaalaan madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ayaa amar ku bixiyay in la dhaqan geliyo talooyinka ay soo jeedin guddiga arrimaha sicir bararka iyo sarifka oo gudoomiye u ahaa madaxweynihii hore Puntland Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Faroole qodobada guddiga soo saaran waxaa kamid ah 1 in canshuurta dekada lagu qaado 20% lacagta shilinka Soomaaliga in mushaarka shaqaalaha lagu siiyo 20% shilinka Soomaaliga in adeegyada lacagta mobilka sahal iyo e-dahab iyo sidoo kale waxyaabaha kale la isticmaalo in guud ahaan la joojiyo sarifyaasha waa in ay ruqsad ka haystaan dowladda garan wasaaradda maaliyadda in cashuurta dowladda laga dhigo shilinka Soomaaliga lagu qaado in sarifka la jaangooyo lana noqdo mid jaangoon bangiga dhaxanay ka timaado in kalsoonida isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga ay noqoto mid aad u sareysa dowladda shacabka iyo ganacsatada ay taa kuba ka wada dhaxeeya 8 in lacagaha ku badan suuqa shilinka Soomaaliga laga xareeyo bangiyada dowladana lagu sheego in la mamnuuco lacago faalsa ah oo suuqa sicir bar gelin kara 8 qodob ay soo saareen guddigan oo Cabdiraxmaan Faroole gudoomiye lagu dhigay madaxweyne Dani ayaana amray dhaqan gelinta go'aanada ka soo baxay madaxweynaha hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole hagaag daawadayaal warbixinadan ayaa ugu weynaa wararkeennii maanta wanaagtaas